الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه وبعد ولا ليال داود يال وحلقدني لبعض كسابسن تاريخ دي صحابي وينا الأورنجري عبد الله بن حذافة السهمي عبد الله بن حذافة السهمي وحانو سوق قادني إن حنباري وراق قرال النبي صلى الله عليه وسلم وأدر هيي بقركي مركي مامولة هيي لولكا لأورنجري فارس warqado fara badan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marxaladihii ugu dambeeyey uu u kala dirayay boqorrada adduunka xilligaa ka talin jiray isagoo nabigu sala allahu calayhi wasalam u marsiinahayay warqadaha fartiimo diineed ee uu u dirahayay boqorrada si ay islaamka ugu soo biiraan kana tagaan kufriga iyo gaalnimada ay ku jiraan haddaba nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabigeennan taariikhdu hadda ay ka hadlayso oo darsigeena aanu ku soo qaadan doono cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi isaga waxaa loo diray boqorkii la odhan jiray kisra markii boqorkii kisra uu arkay ninkan saxaabiga ah oo ku soo socda xambaarsanna warqad qoraal ah ka socota nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayaa wuxuu ku yidhi kisra ninkaa ha ii soo gelinine warqadda iga soo qaada marka wuu diiday cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi wuxuu yidhi innamaa amaranii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an adfacahu laka yadan biyad wa ana laa ukhaalifu amran lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nabigu wuxuu i amray sala allahu calayhi wasalam in gacanta aan kuu geliyo warqaddan dacwada ah ee uun kugu baaqayno islaamka inaad soo gashid laakiin aniga qof inaan u dhiibo warqadda nebigu ima amrin sidaa awgeed ma jebinayo mana khilaafahayo amarkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaa kisra boqorkii ahaa wuxuu ku yidhi ciidamadiisii iska daaya ha ii soo dhowaado cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi wuxuu u dhowaaday boqorkii kisra ilaa uu gacanta ka saaray qoraalkii nebi moxamed uu u soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam haddaba boqorkaasi ma uusan garanaynin afka ama luqadda warqaddu ay ku qoran tahay warqaddu waxay ku qornayd afkii carabiga ahaa oo luqa alcarabiya ayay ku qorrayd wuxuu u yeertay nin luqadda carabiga aada u yaqaana wuxuuna amar ku bixiyey inuu warqadda furo uuna kala bixiyo bal uuna aqriyo waxa warqadda uu ku soo qoray nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh warqaddii markii lagu dul akhriyey waxay u dhacaysay warqaddani sida tan ayaa ku qorayd warqadda bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illaah ilaa kisra cadiimi faris salaamun calaa man itabaca alhudaa waxaan ku bilaabay magaca eebe ka socoto nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ergadii ilaahay uu soo diray ahaa ku socoto ninka la yidhaaho kisra hoggaamiye waddanka la yidhaaho faris nabadgelyo allaha yeelo qofkii jidka hanuunka raaca intaas waa hadal murti ah ee kooban ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ugu baaqahayo kisra inuu jidka lagu nabadgelahayo lagu badbaadahayo waa islaamka uu qaato haddaba kisra markuu maqlay warqaddii qadarkan ma sii dhammaystirin warqaddu waxa ku qoraa ilaa markaa uu aada u xanaaqay oo aad uu u bararay xanaaqii intuu ka batay maxaa yeelay ninkani badownimadiisa kisra waxa uu ka xanaaqay uu leeyahay nebigu isaga ayaa warqadda isku bilaabay ka socoto nebi moxamed ergadii ilaahay muxuu aniga iigu bilaabi waayey warqadda magacayga ayuu yidhi warqaddii ayuu ka qaaday ninkii ku dul akhrinayay markaa ayuu dildillaaciyey waraaqdii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayuu jeexjeexay markaasuu wuxuu yidhi hadal aflagaada leh ayaktubu lii bihada wa huwa cabdii
ثuma amara bicabdillaahi bni xudaafa an yukhraja min majlisihi fa ukhrij. wuxuu yidhi isagoo addoonkaygii ah miyuu waxan oo kale aniga iisoo qorahayaa buu yidhi. addoonkaygii isagoo ah nebi maxamedu sidaa u aflagaadayn. wuxuu amar ku bixiyey saxaabigan cabdullaahi bni xudaafa assahmi xafiiska hala iga saaro ayuu ku yidhi. cabdullaahi bni xudaafa assahmi wuxuu ka baxay xafiiskii boqorkii kisra isagoon markaa ogeyn waxa lagu samayn doono, bal in la dili doono iyo in la cafin doono. laakiin markii uu xafiiska ka baxahayey cabdullaahi bni xudaafa waxa uu yidhi wallaahi maa ubaali calaa ayi xaalin akuunu bacda an addaytu kitaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi wixii doonaa ha igu dhacaan mar haddii fartiintii nebi moxamed aan gaarsiiyey meeshii loogu tala galay, waa boqorkii kisra. marka haddii fartiintii aniga aan gutay oo amarkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama aan gaarsiiyey boqorkii kisra ha lay dilu yidhi haddii la doono. markii kisra xanaaqii uu ka degey ayuu wuxuu amar ku bixiyey in cabdullaahi bni xudaafa oo saxaabigii lasoo qabto. way raadiyeen, markaa way waayeen raadkiisii, liannahu mar hore ayuu faraskiisii ku dhacay oo markaa uu dhaqaajiyey cabdullaahi bni xudaafa assahmi. haddaba nabigu sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi bni xudaafa assahmi nabiga ayuu u tegey, wuxuuna u sheegay wixii uu kala kulmay boqorkii kisra iyo inuu dildilaaciyey waraaqdii iyo qoraalkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam hal eray uunbuu ku dhawaaqay. wuxuu yidhi mazaqa allaahu mulkah. sida uu waraaqdayda fartiinta ah u dildilaaciyey boqortooyadiisa sidaasoo kale allaha u kitfo iyo dowladdiisa allaha dildilaaciyo isagana. marka intaa kuma siman boqorkii kisra waxa uu qoraal deg dega u qoray nin isaga yeman wakiil uga ahaa oo la odhan jiray baadaan. wuxuu ku yidhi ninkan dhulkan xijaas ka soo baxay waxaad u dirtaa buu yidhi laba nin oo ciidan ahee xoog leh, waxaadna labadaa nin amar ku siisaa inay si deg dega xafiiskayga iigu keenaan nebi moxamed. ha la ii soo qabtuu yidhi nebi moxamed. hadduuba gaaray inuu qoraallo ii soo diro. haddaba ninkii baadaan ee yeman xukumahayey laakiin yeman ka xukumahayey dhinaca kisra wakiil uga ahaa xukunka yeman ayaa wuxuu u soo diray laba nin si ay nabiga sala allahu calayhi wasalam ay markaa u keenaan oo kisra ay ugu geeyaan. wuxuuna u dhiibay waraaq qoraal ah oo uu ku codsanahayo waraaqdaa qoraalka ah inuu si deg dega u soo raaco isagoon daahdaahin nabigu sala allahu calayhi wasalam. laakiin ninkan nin caqli badan ayuu ahaa. baadaan wuxuu yidhi xogta nebi moxamed ii soo ogaaduu yidhi ninka nebinimada sheeganaya bal waxa uu yahana soo ogaada. labadii nin way baxeen, waxay gaareen daa'if. markii dhulka daa'if ay tageen waxay heleen rag ganacsato ah ee ka mid a qabiilka reer quraysh. waxay weydiiyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam halka uu ku sugan yahay. waxay yidhaaheen nebi moxamed wuxuu ku sugan yahay magaalada la yidhaaho madiina almunawara. ganacsatadii waxay u tageen dhinaca maka iyagoo aad u faraxsan, aad u bishaaraysanahaya, waxayna iskugu tahniyadaynahayeen. waxay dhahayeen ogaada farxad weyn ayaa soo socota, madaxweynaha kisra ayaa fartiin u soo faray nebi moxamed oo yidhi ha la ii soo xirxiro, ha la ii soo qabto, si deg degana xafiiska ha la iigu keeno. marka gaaladii oo dhan waxay isku direen tahniyado iyaga oo dhahaya waanu ka raaxaysanaynaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. liannahu boqorkan kisra waxa uu taagnaa booskan hadda dowladda maraykan ay adduunka ka taagan tahay oo dadka yacni ay ka haybaysanayaan ama ay ka baqahayaan. booskaasoo kale ayuu kisra u taagnaa adduunka. dowladdu wuxuu dhisay awooddeedu ay yacni ballaaran tahay, dowladaha kalena ay aad uga baqaan. marka gaaladii oo dhan waxay iskugu tahniyadeeyeen dee waa nin maantay maraykan dalbanahayo oo kale oo uu yidhi ninkaa ha la ii soo qabto. heerkaasuu taagnaa kisra iyo xukuumaddiisiba. marka tahniyada ayay isku direen gaaladii oo ay leeyihiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ninkaa ayaa gacanta ku dhigi doona.
labadii nin marka waxay magaalada madiine ayay ugu tageen nabiga sala allahu calayhi wasalam waxayna u dhiibeen waraaqdii uu soo qoray baadaan marka waxay ku yidhaaheen warqaddani waxa ay ku leedahay inaad si deg dega aada u soo baxdo waxaa ku codsanahaya boqorka kisra haddii aad si dhega fudud hadalkeenna aada u dhegaysatid oo aadna raacdid waannu kaala hadli doonnaa boqorka kisra laakiin haddii aad diiddo waad og tahay kisra awoodda uu leeyahay waad og tahay sida uu awood u leeyahay inuu ku halaago adiga iyo qoomkaaga dhanba marka way u cagajugleeyeen waxayna ugu hanjabeen awoodda iyo haybadda markaa dowladda kisra ay adduunka ay ku lahayd rasuulku marka sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuu dhoolla caddeeyey wuu ku qoslay nimankii wuu ku qoslay wuxuuna ku yidhi irjicaa ilaa rixaalikum alyowm wa'tiyaa gadaa wuxuu yidhi guryihiinna ordoo isaga laabta bal maanta berri markii waagu inoo baryo markaasaan warbixin idin siine bal ii kaalaya berri barridii markii la gaadhay nimankii nabiga ayay ku soo kallaheen sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxayna ku yidhaaheen ma isdiyaarisay si aad noo raacdo oo boqorka kisra ayaa ku dalbanahayee si aad noo raacdo ma isdiyaarisay markaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi lan talqayaa kisraa bacda alyowm falaqad qatalahu allah xayثu sallada calayhi bnah shiirawayh fii leylati kada min shahri kada wuxuu ku yidhi war nin kisre la yidhaaho maanta wixii ka dambeeya magiciisa lama maqli doono ninkaa ilaahaya xalay dilay wax ma ogidin maxaa yeelay khabarka samada iyo dhulka ayaa isku xiraa nabiga sala allahu calayhi wasalam wixii adduunka daafihiisa ka dhacaya waxa u keeni jiray wararkiisa iyo akhbaartiisa jibriil oo ilaahay uu u soo diray oo ergadii ilaahay ah subxaanahu wa tacaala marka nabiga jibriil wuxuu u soo sheegay ninkaasi in la dilay oo rabbi subxaanahu wa tacaala bal dulliga iyo dullinimada ninkaa boqorkaa ku dhacay wiilkiisii ayay siyaasadda isku qabsadeen shiirawayh wiilkiisiyaa dilay oo ilaahay uu ku salliday subxaanahu wa tacaala falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati اddunya ilaahay wuxuu leeyahay gaalada maalkooda iyo carruurtoodu yaysan ku cajab gelinin ilaahay wuxuu doonahayaa maalka iyo carruurtaba inuu maalin uun ciqaab uga dhigo carruurta ay korkorinahayaan oy qarashka ku beelahayaan oo jecel yihiin ayuu alla wuxuu leeyahay carruurtoodaan ku cadaabahaya iyagaa dilahaya iyagaa caasi ku noqonahay iyagaa dullaysanahaya marka carruurtoodaa mararka qaar lagu cadaabi gaalada iyo qof walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka hor timaada awaamirtiisa marka nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ninkaasi wuu dhintay buu yidhi wiilkiisa gacantiisu ayuuna maaragtaay ku dhintay shiirawayh habeenkii sidaa ahaa taariikhdu markay intaa maraysay ayuuna ninkaasi dhintay dee niman iska socdaad tihiin oo waxba aan garanayn waxa ka dhacahaya adduunkana aan la socan nimankii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay u fiiriyeen si yacni aad ay uga muuqato wejigooda yaab iyo amakaag way la yaabeen hadalka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxayna ku yidhaaheen atadri maa taquul anaktubu bidaalika libaadaan waxa aad ku hadlayso horta ma garanaysaa oo warka adiga aad ku hadlayso ninkii baadaan yeman xukumahayey ee kisrana markaa uu wakiil uga ahaa yeman ma u qornaa hadda kisraa dhintay oo ninkaa maanta ka bacdi dowladdiisa ma shaqaynayso wiilkiisaa ilaahay ku salliday taariikhda ma u qornaa wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam nacam waquulaa lahu ina diinii sayablugu maa wasala ilayhi mulku kisraa wa inaka in aslamta acdaytuka maa taxta yadayka wamallaktuka calaa qowmik wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam sidaa u sheeguu yidhi u qora waxaad kabaad ku tiri ahaan buu yidhi diintaydu waxay gaari doontaa waa diinta islaamka boqortooyada kisra meesha hadda ay joogto
waa dhulka faris iiraan iyo dhulka maaragtaahay ilaa afghanistan iyo hindi iyo bakistan iyo dhulkaasaa faris la odhan jiray. meesha uu ka talinahayo ayaa islaamkaygu gaari doonaa oo diintaydu gaari doontaa, sidaa u sheeg. waxaad kalood u sheegtaa ninkan baadaane yeman xukumahaya, haddaad soo islaamto waxaan gacanta kuu gelinahayaa yeman, madax ayaana kaa dhigi doonaa. taasina waxay ka mid tahay siyaasadaha uu adeegsanayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. maxaa yeelay qofku markuu iimaankiisu uu daciif yahay, weli waxaa qalbigiisa ka buuxa maaddadii iyo dirhamkii iyo diinaarkii iyo doolarka jacaylkiisii iyo xugun jacaylkii ayaa qalbiga ka buuxa. sidaa awgeed marka si cudurkaa tartiib tartiib looga daaweynayo, waa in marka waxyaalihii ku borogaraamsanaa oo ku barmajgaraysnaa waa in marka gacanta loo geliyo. isagaaba iska nici doona waxyaalaha noocaas oo kalea markuu islaamka si wanaagsan u macaansado. labadii nin way baxeen, waxayna u galeen ninkii baadaan, waxayna u sheegeen fartiintii nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh. markaasuu wuxuu ku yidhi baadaan, waxa uu nebi moxamed sheegay haddiiba ay dhacaan buu yidhi, oo ninkaa kisra wiilkiisa uu dilay, waa nebi xaqiiqo ah buu yidhi. laakiin haddii sida uu u sheegahayo arrintu aysan noqonin, go-aan ayaan ka qaadan doonaa buu yidhi. isla markiiba wax yar markuu joogay ninkii baadaane yeman xukumahayay, waraaq qoraal oo deg deg ah ayaa waxaa u soo diray shiiraweyhi, waa ninkii aabbihii dilay kisra. waraaqdaa waxa uu ku leeyahay, wuxuu yidhi aabbahay anigaa dilay kisra, mana u dilin ilaa waxaan u dilay dulmiga uu ku hayo dadweynaha iyo shacabka. wuxuu xalaal ka dhigtay aabbahay dadkii sharafta lahaa inuu laayo, dumarkiina uu iska qafaasho, xoolihii shacabka inuu boobo. haddii qoraalkayguna uu kuu yimaado, waxaad ogaan doontaa yeman anigaa xukumahaya, adiguna wakiil ayaad iiga tahay yeman. markii baadaan uu akhriyey warqaddii uu soo qoray shiirawey, waraaqdii ayuu iska tuuray, wuxuuna caddeeyey inuu islaamka uu ku soo biiray. maalintaa ayuuna islaamay ninkii baadaan la odhan jiray ee yeman xukumahayay. tani marka walaalayaal waa qisadii kulankii cabdullaahi bni xudaafa ee uu la kulmay kisra oo boqorkii furus ahaa. qisadaasi marka walaalayaal waxaanu ka qaadan karnaa duruus iyo xikam iyo cibar aad u waaweyn ayaanu ka qaadan karnaa. qisada aanu ka qaadan karno, xikamta aanu ka qaadan karno waxaa ka mid ah saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida ay mar walbaba yacni bidiqa wa bicumq ay u tadbiiqin jireen amarada iyo sunnada uu markaas soo rogayo nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh. maxaa yeelay waxaanu garanaynaa cabdullaahi bni xudaafa assahmi markii la yidhi warqadda iiga soo qaad ninka gaalku markuu yidhi aniga gacantayda uga qaadi maayee, wuu diiday saxaabiga. wuxuu yidhi nabigu wuxuu i amray inaan gacanta kuu geliyo, amarka nebi moxamedna jebin maayo. bal u fiirsada walaalayaal, maanta maxaa inala habboon walaalayaal? qof walba waxaa la dooni in ay u dhega nuglaato, nolosheennana aanu ku tadbiiqinno raacidda nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh, iyo sunnadiisa inaannu xoojinno oo sunnadiisa aanu noolayno, oo nolosheenna o dhan ay noqoto noloshii nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh. jiifkeenna iyo jooggeenna, gaajadeenna iyo dheregteenna, tukashadeenna iyo hurdadeenna, adduunyadeenna iyo aakhiradeenna iyo waxbarashadeenna, kulli nolosheennu inay noqoto nolol yacni ku salaysan noloshii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. liannahu ilaahay wuxuu leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim. ha ka digtoonaadaan dadka khilaafahaya amarka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inay fitna ku dhacdo ama cadaab aad u xanuun badani uu ku dhaco. waxaa kaloo qisadan kulankan uu la yeeshay cabdullaahi bni xudaafa assahmi boqorkan kisra aanu ka qaadanaynaa waxay tahay, waxaa ilaahay uu ugu deeqay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ee mucjizaadka waaweyn ah. maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo magaalada madiina almunawara jooga ayaa waxaa ilaahay ogeysiiyey habeenkii la dilahayey kisra isagoo faris jooga, waa dhilka eeraan isagoo jooga ayuu magaalada madiina almunawara sacuudiga
uu nabigu ku ogaaday sala allahu calayhi wasalam. marka waxay ka mid tahay mucjizaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu deeqay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam. xikamka aanu ka qaadanayno waxaa ka mid ah islaamku yacni sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalhayay in caalamka oo dhan uu ku fido. walidaalika waxaa la doonay dadka yacni warahatu alambiyaa ah ee ambiyada dhaxlay ee culimmada ah waxaa la doonay in ay qaadaan hadyigii iyo jidkii uu qaaday nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh, oo diinta ay fidiyaan, oo xaafadaha ay ku fidiyaan, oo usradooda ay ku fidiyaan, oo waddankooda ay ku fidiyaan, oo caalamka oo dhan ay niyeystaan diinta islaamku in ay wada gaarto. waa sidii markaa uu nooga tegey nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh, jidkiisuna uu ahaa. haddaba markaa waxaanu qaadanaynaa qiso kale ee iyaduna la yaab leh. waa kulankii cabdullaahi bni xudaafa assahmi uu la qaatay boqorkii la odhan jiray qaysar. boqorkii qaysar isaguna dowladda roomaanka xukumi jiray, kulankaasi wuxuu dhacay khilaafadii sayidina cumar bnu alkhadaab. waxa kulankaasi uu dhacay sanadkii 19 ayaa wuxuu diray amiiru lmu'miniin cumar bnu alkhadaab ciidan ayuu wuxuu u diray roomaanka inay la dagaalamaan. ciidankana waxaa ku jiray saxaabiga haddaanu ka taariikhaynayno cabdullaahi bni xudaafa assahmi. marka ninkan qaysar la yidhaaho oo dhulkaa roomaanka ka talin jiray waxaa soo gaaray wararka tilmaamaya ciidanka muslimiintu in ay leeyihiin tilmaamo qaali ah, tilmaamo iyo astaamo qaali ah oo ay ku dagaalamaan, oo waxa aysan dagaalka uga daalaynin, oo waxa ay geerida ay u jecel yihiin, oo waxa ay futuuxaadka bilaadul islaam oo dhan yacni bilaadul kufri oo dhan ay u furanahayaan, oo maalin walba hore ay ugu soo soconahayaan oo gadaal aysan u soo soconaynin. waxyaalaha kallifay waxaa ka mid ah soo gaaray boqorkaa gaalka ah niman runta ku dadaala inay yihiin oo run badan, niman caqiidadu ay ka dhab tahay inay yihiin, niman naftu ay rakhiis la tahay inay tahay marba haddii lagu dagaalamahayo fii sabiili illah. marka boqorkan qaysar wuxuu ciidamadiisii uu ku amray, wuxuu yidhi haddii aad dad ka mid ah asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nolol aad ku qabataan, wuxuu yidhi hadilinina ii keena, bal caqiidadooda iyo runta laga sheegahayay go-aanka adag si aan u imtixaano. ilaahay qudraddii subxaanahu wa tacaala ee awooddiisa waxaa dhacay saxaabigan cabdullaahi bni xudaafa assahmi in markaas gacantooda uu galo gaaladii roomaan oo ay qabtaan ay qafaashaan. waxay ku yidhaaheen ciidankii kan aanu soo qabannay wuxuu ka mid yahay asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee islaamka ugu hormartay. wuxuu eegay boqorkii roomaan qaysar cabdullaahi bni xudaafa assahmi, markaasuu wuxuu yidhi waxaan kuu soo bandhigahayaa cabdullaahi bni xudaafa assahmi, arrin ayaan kuu soo bandhigi. wuxuu yahay maxay tahay waxaad ii soo bandhigayso? wuxuu yidhi boqorku waxaan kuu soo bandhigahayaa in aad kirishtaanka diinta kirishtanka aad qaadatid oo nasaaro aad noqotid. haddii aad arrinkaas samaysana waan ku sii daynahay, dee hadda gacantaydaad ku jirtaaho dee haddaanu doonno waan ku dili karnaa, waan ku sii daynahay, weliba hanti fara badanna waa ku siinahay. markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bni xudaafa assahmi hayhaat ina almowta la axabu ilaya alfa mara mima tadcuunii ilayh. wuxuu yidhi taa ha ku riyoon, weligaa ha ku riyoonin qaysar, geerida ayaan ka jecelahay 1000 goor inaan dhinto waxa aad iigu yeerayso ood igu baaqayso waa naaru jahannama gal, waa rabbigii xibnahaagan isi saaray inaan ku kufriyo islaamkana aan ka baxo ayaad iigu baaqaysaa, ha ku riyoon weligaa. wuxuu yidhi markaa gaalkii qaysar haddaba waxaan ku arkahayaa buu yidhi nin geesiya inaad tahay. wuxuu yidhi haddii aad diintan kirishtanka qaadatid madaxtinimada waa qayb ayaan kaa siin, oo dowladdayda xibin weyn ee firfircoon ayaan kaa siin, hantina waan ku siinahay. bal u fiirso, leannahu waxa weeye walaalayaal jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee qofku uu ku socdo si uu u gaaro ilaahay ridihiisa iyo raxmaddiisa iyo jannada uu u gaaro,
jidka ilaahay waxaa yaalla isbaarooyin fara badan mar waxaa kuu gacan haatinahaya ee doonahaya inay ku fidneeyaan cadowgii gaalada oo diintaada ay kaa fidnaynahayaan mar waxaa ku isbaaraysanahaya oo iimaanka kaa bililiqaysanahaya hanti iyo lacag dahab iyo dollar laga yaabo meelahaad ka qaadaysa inay xaaraam yihiin ama shubhaya shaki ay ku jiraan meesha aad ka qaadanayso waa isbaaro waxay kaa reebahayaan socdaalkii geeddi socodkii nadiifka ahaa oo jidka ilaahay aad ugu socon lahayd dadka qaarna waxay ku haraan oo u isbaaraysta iyagoo ilaahay u sii socda ridihiisa oo toosan haween ayay ku fidnoobahayaan markaasaa waxay ku dhacahayaan fawaaxishtii iyo zinadii iyo dembiyada halista ah ee muhlikaadka ah qaarkood waxaa isbaaro u dhiganahaya qabiil iyo qabyaalad qaarkood waxaa isbaaro u dhigahaya fitan walidaalika walaalayaal jidka ilaahay loo marayo isbaarooyin fara badan ayaa yaalla marka isbaarooyinkaasuu doonayey inuu boqorkan qaysar uu hor dhigo saxaabigan cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi marna dhinaca hantidu uga yimaadaa marna dhinaca madaxtinimadu uga yimaadaa marna wuxuu uga yimaadaa inuu xurriyad uu siin doono cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi isagoo xirxiran ayuu wuxuu yidhi wallah low acdaytanii jamiica maa tamlik wa jamiica maa malakatu alcarab calaa an arjica can dini muxamed darfata cayn maa facaltu wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartaa haddii aad isiinayso waxa carabu hanti ay leedahay oo dhan iyo waxa adiga hanti aad leedahay oo dhan haddii aad isiiso ilmilicsi xataa ka tegi maayo kana laaban maayo diinta islaamka markaasuu go-aan qaatay bal u fiirso walaalayaal saxaabiga iimaankiisa wuxuu leeyahay hantida carab oo dhan haddii laysku daro laygu wareejiyo diintayda yacni ilbiliqsi xataa ka laaban maayo mana nusqaaminahayo iimaankayga maantana walaalayaal haddaanu soomaali nahay maxaa badaha laysugu shubahaya maxaa naftii qaaliga ahayd loo dilahaya maxaa laysu dilahaya maxaa laysu baabi'inahaya maxaa badaha looga tallaabay maxaa waddamada gaalada dadka iimaankoodii ay yacni u suuq geeyeen ilaa man raximahu llah qof ilaahay u naxariista mooye maxaa loo suuq geeyey iimaankii oo loo iibsaday oo waxaan waxba ahayn lagu iibsaday iimaankii iyo akhlaaqdii walaalayaal saxaabigana wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi hantida carab oo dhan haddii laygu wareejiyo diintayda wax yar xataa ka durki maayo sidaasaa la dooni walaalayaal in diinta loogu adkaysto waxau yidhi marka haddaba waan ku dilahayaa buu yidhi haddaad hanti iyo wax walba diidday ogaa buu yidhi go-aankaygu wuxuu noqonahayaa cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi inaan ku dilo haddaba walaalayaal wakhtigii oo inaga dhammaaday awgeed xalqadii labaad ee taariikhdii cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi halkaa ayaanu ku sinaynaa in sha allahu tacaala waxaa inoo ballanaa xalqada saddexaad ee aanu ku dhammaystiri doonno taarikh nololeedkii cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi iyo bal waxa ay ku dhammaan doonto sheekadan cajiibka leh ee dhex martay boqorkii roomaan xukumahayey qaysar iyo saxaabigan cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi daawadayaal aad ayaanu idinkaga mahad celinaynaa fursadda aad inoo siiseen inaad ina dhegaysataan na daawataan haadaa wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu